warkii hore war soo dhaaf mucaaradada cusub ee deni lafta gareen qoorqoor axmed madoobe iga qora aniga xukuumadda abi ayaa gadaal ka riixaysa laakiin su'aasha malaayiin Soomaaliyeed ee isweydiinayaan ama madaxooda ka dhax guuxaysa wax kala maaha horta axmed madoobe iyo deni iyo qoorqoor maxaa mideeyay maxaa xashan sheekh maxamuud mid marka loo fiirsho iyagu ay isku diidan yihiin waxaan rabaa in kastoo siyaasi danihiisa aan la soo koobi karin haddana nuxurka khilaafkooda inaan idiin soo bandhiga caawa waa qodob aad u xiiso badan qaybta koowaad ee barnaamijkan ku soo bandhigayaa mid walba iyo waxa uu xasan ku diidan yahay ayaan rabaa inaan idiin sheego qaybta labaadna Sacdiyo Firimbi shalay waa fakata wax yar ay ku fakata penalty isniinta mooshinka ayada ka dhanka ana laba qolaa gadaal ka riixaysa inkastoo tubaraac ay tahay haddana mooshinkaas u tabaraaciya haddana habartan hanan dhaaftaan qaba anigu qaybta labaad ee barnaamijka ayaanu ku falanqeynaynaa aan u soo laabto 6 bilood xasan ma joogo madaxdii maamul goboleedyadana cali guudlaaw marka laga reebo dee isbahaysiga ku dhawaaqeen xasan sheekh maxamuud ka dhan ah marka iyagu isku dan maaha mid walbo xasan sheekh maxamuud waxbuu ka tabanayaa waxaan rabaa marka inaan ummadda Soomaaliyeed maanta u bidhaamiyo waxa ka qarsoon ee madaxdu isku hayaan nin walba wax gaar uu tabanayaa isku dhib maaha iyaga dhanba aan ku bilaabo waxa ugu weyn labadii saaxiib ee qoray iyo maal iyo af lagu weeraray waa xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe khilaafkooda horta labada oday wax kale iskuma hayaan waad la socotaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud gulufka dhana shabaab ayuu dalka kaga dhawaaqay maamul kastana inuu dhaqaaqo dowladuna ay taageerto shacabkuna kaalinta dagaalku ay ka muuqdaan axmed madoobe wax kale lagu ma haysto wuxuu soo jeediyay madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa u soo jeediyay in adeerkiis xamso in hirshabeelle tilaabada ay qaadeen iyo galmudug mid lamida jubbaland looga baahan yahay isaguna uu hormuud ka noqdo xasan sheekh maxamuud waa ka diiday wax kale oo dhan saaxiibay ku yihiin xasan wuxuu yiri shabaab shacab iyo dowlad wada socda ayaa ka takhalusi kara sidaan ku aragnay hirshabeelle iyo galmudug odayga axmed madoobe waa diiday ciidanka jubbaland baa ka adkaan kara waxaa la yidhi dhegeyso war 10 sano iyo ka badanaa ciidanka jubbaland halkaas ku heesaa maxaad kala qaadeen adigii shabaab kismaayo ku hareeraysan tahay hay xasanoo maxaa rabtaa waxaa la rabaa marka hore intaadan shabaab la diririn dadka deegaanka goboladan jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gado ishir weyne wada tashi iyo dib u heshiisiin ah loo qabto mareexaan iyo ogaadeen sheeqaal iyo qabiilada halkaasi wada dega oo heshiisa in shabaab laga hortago haddana ma muuqato taasoo gado qayladhaan weyn baa ka soo yeeraysa beelihii deganaa jubbada dhexe iyo jubbada hoosena axmedow raalli kaama wada aha inaan shir u qabanno dib u heshiisiin ah markii la wada heshiiyena guluf garba siman ah la wada qaado axmed madoobe wuxuu yidhi maya maanaa leesoo mari rabaa maanaa xukunka in laga tuuro la rabaa odayaashu horta halkaas iska haysataa inta kale heshiisa ka yihiin axmed madoobe halkaas ku tuur ninkii la yidhaha lafta gareen kama fogo isaguna wuxuu taagan yahay ciidamo koonfur galbeed la yidhaha ayaa shabaab duulaan ku qaadaya beedhabo banaankeeda daynunaa la haystaa beedhabo banaankeeda aawa ciidamadii lafta gareen meeya ama ciidamadii koonfur galbeed xasan sheekh taas wuxuu u aaneynayaa in labeentii koonfur galbeed iyo siyaasiyiintoodiiba xamar ay joogaan aan loo ogoleenba inay beedhabo tagaan oo la weerarayo oo la dilayo oo familadoodii iyo qoysaskoodiina guryaha loogu daato habeenkii xaalad noocaasoo jirta madaxweyne xasan sheekh wuxuu taagan yahay dadka deegaanka masiirkooda hal nin oo lafta gareen oo ma haysan karo in madaxdii iyo labeentii ay beedhabo ku laabtaan dadka deegaankana laysku keeno si lamida jubbaland heshiis nabadeed la gaaro kadibna shabaab loo jihaysto phase 2 dagaalka la dhaho oo hadda galmudug iyo hirshabeelle looga takhaluso shabaabka qaybtiisa labaad waa jubbaland iyo koonfur galbeed laakiin dadka deegaanka qabiilada halkaas degan oo xoogga lagu haysto jubbaland iyo koonfur galbeed inta khilaaf noocaasa ama tabasho noocaasa ay jirto madaxweynuhu wuxuu yiri guluf shabaab waxa ii dambeeyo isagoo marka madaxweynaha door bidayo in doorka ugu weyn la siiyo shacabka iyo midnimada shacabka horta labadaasna halkaas lagu haystaa lafta gareenna wuxuu taagan yahay labeenta koonfur galbeed ma kuwa mucaaradkayga ahaa oo xasan sheekh maxamuud uu dhegta xamar wax ugu sheego waa sidoo isaga aaminsan qoorqoorna waa ka duwan yahay
oo labeentii galmudug ama reexaan ama waxaysle ama habargidir ama mursade ama duduble ama dir iyagu xataa ayagu ka soo horjeeda qorqoor kuraastoodii xataa way soo dhacsanayeen maantana gulufeeg xataa ka wadaan deegaanadooda iyagoo xataa aan u baahnayn qorqoor laakiin qorqoor isagu labadan waxay tabanayaan wax ka duwan buu tabanayaa qorqoor wuxuu leeyahay xasan sheekh maxamuud haddii masiirka iyo ayatiinka galmudug uu rababa niman saleebaan oo aniga igu reera oo abshir buqaari iyo rag kale oo habargidirooba iska wareystaayo xataa markaa xamar joogo uma haystaba inaan madaxweynihii galmudug ahay oo mahad salaad iyo abshir buqaari iyo raggaas baa lagala sheekaystaa oo ninkan imaba aqoonsanaba maxaan aniguna ninkuu yidhi sinaan mayno ana diid sarreyntiisuu taagaya horta intaas waaye laakiin deni baa soo haray horta deni iyo xasan sheekh maxamuud 93 ilaa iyo hadda oo la gelayo dhowr maalin kadib 2023 soddon sano waaye rag saaxiiba oo tacliinta iyo siyaasadda intaba meel dheer iskala soo jiday ahaayeen deni isagu waa ka wada duwaya marka raggan dhan waxay tabanayaan deni laba waaye deni midda koowaad ee xasan uu diiday waxay tahay haddii xasanow dowladda dhexe qof puntland ka soo jeeda magaca puntland ku abtirsada dowladda dhexe uu ka qayb qaadanaya waa in aniga laysoo maraa xasanna wuxuu taagan yahay aniga dowladda dhexaa madax ka ahay cid walba oo dowladda dhexe iyo aniga ila shaqayn karta oo reer puntland anagaa soo xulan ayuu taagan yahay qofna u dhexmari maayo rabitaanka reer puntland shaksi uma dhexmarayo oo xataa wax xasuustaan deni haddii xataa ra-iisul wasaaraha majeerteen laga dhigayo dhah waa in aniga laysoo dhexmaraa ama ma soo maahan iga leexiyo ogaadeen u geey waa siyaasi dantiise marka deni middaas horta waa number 1 midda labaadna deni wuxuu taagayaa ninkii 30 sano aan saaxiib ahayn oo walaal ku ahayn tacliinta iyo siyaasadda iyo dhan walbo markaan xamar imaado oo aan nasiina ama siyaasad ama shir u imaadoba rag ayaa habargidir u badan baa isku hareereeyay madaxweynihii rag uusan shalay garanaynin inuu siyaasadda shalay kula saaxiibo oo taariikh isla soo jabin baa maanta isku hareereeyay marka xasan markuu dantiisa gaaray weji cusub buu ila yimid marka taasna ilaa uu raggan daba heehaabaya ee daba socdo iska dhigo oo xasan kaa ogaay noqonayo dee siyaasadiisana saas baa loogu hareerisayahay ma rabo marka intaasoo dhan marka la isku soo duubo gardara garab ogaa la yidhaha xukuumadda abiy ayaa mid walba uga wacaysa adis ababa iyadoo aan marna ku qanacsanayn siyaasadda xasan sheekh maxamuud ee ku dhisan waxa ay soomaaliya rabto soomaaliya samaysan karta dowlad in loo daba socdaa shisheeyana waa wax ceeb ah si lamida dowladdii farmaajo ayay etoobiya rabtaa in wax walbo abiy axmed ee soomaaliya uu ka leeyahay in farmaajo camal uu gacanta qabsado inta ka dhac inta ka bax la yidhaha xasan waa diidaya etoobiyana mar haddii dowlad soomaaliyeed oo iyada aan la tashanaynin ee jirto waa inay carqalad abuurtaa example hadda dolow nin la yidhaha maxamed cabdi lafey in la jeclahay waa ninka dolow guddoomiyaha degmada dolow maanta wuxuu ku dhawaaqay waa nin etoobiya gacan saar la leh waaye oo ciidamada etoobiya xiriir fiican la leh jubbaland iyo dowlad dhexaba gada kama soo degi karaan ciddii soo degtana hala xiro waa nin guddoomiye degmo dolow la yidhaha sidaa kuma goodin karo haddii uusan ciidamada etoobiya ama mataqaanaa fargelin ciidamada etoobiya aysan jirin intaasba kuma dhiiradin marka isku soo wada duube xasan sheekh iyo abiy xaalkoodu meesha ku dambeyn doono weye intaan kale waa xaawo lafta gareen hebelo waa iska xaawo waay oo siyaasadda labadan nin saameynta kule gobolka ay shidanayaan muhiimadda waa fahanteen soo maa intaasaan kaga gudbaayaye waa ku dheeraaday xaalka sacadiyo firimbi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka xaalkeeda intuu maraya hortolna islaantaas jandarkii iyo baktigii iyo balaayadii aan dhaqan iyo diin midna u lahayn u ololeynaysay markii dambena u muuqatay mid ka shalaynaysa maalinba odayaal soo wado maalin culimo ka soo duub si shaabadan isaga fujiso laba qolo ayaa ku dhegan qolada koowaad ayada mar walba taargetka u ah waa qoladii xasan nimanka la yidhaha farmaajo xildhibaanadii farmaajo 60 ilaa 90 lagu qiyaaso ayaa mar walba horta islaantan diidan sideedaba oo waa tii firimbi ka daboodatay madaxweynahoodii waqtigaas farmaajo waa koowe qolada labaadna waa xildhibaano
maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo mataqaanaa rag sidaas ah oo raba haddii xukuumadda mooshin laga wado cid qabanaysa male gudoomiyihii baarlamaanka ku-xigeenkiisa koowaad kii labaad intaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud bay ku siyaasad yihiin marka duleel dus ah oo laga duso oo looga dhex dhunto mooshinadii la rabay xukuumadda ama madaxweynaha ciddii lala xisaabtami lahaa in albaab la furo iyaduna waa laba qolo ayay kulmisa siyaasaddaasoo in laga taqluso marka tubarac bay sameynayaan jaanis bay ku heleen hadda waa naagtii jandarka marka waxaan rabaa waa tubadan waa tuba xalaal ah marba haddii jandar iyo mataqaanaa qoomuluudnimoba ay bannaanka la timid oo dowlado shisheeye ay lacag ka soo qaadatay oo dhaqankii iyo diintii ay weerar ku tahay in meesha laga saaro anigu waa soo dhaweynaya horta marka ankara iyo madaxdii baydhabo iyo garowe baa duqdii looga soo duulayaa iyadoo jaaniskaas lagu helay marka waxaan rabaa intaas waaye inta barnaamijka hadda aan jeclaan lahaa inaan ku sharaxo waxa ugu weyn ee siyaasadda Soomaaliya maanta dul hoganaya marka intaasaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkayga habeennimo tan inta barnaamij noocan ay ku kulmi doonno waa saaxiibkiin boosko idin leh sidaa iyo nabadgelyo